magaca asluubta marka la sheegayo asluub markii lagu fasiro luqada ama fahamka ciidanka waa discipline qofkan asluubo leeyahay discipline oo leeyahay laga wadaa macnaha marka lagu fasiro fahamka dhaqankeena iyo diinta aan aaminsanahay waa akhlaaqda qofka suubanaheena calayhi salaam loo soo saaray waxa loo soo saaray inuu akhlaaqda dadka dhameystiro inama bucistu li utammima makarim al akhlaaq marka qofka asluubta kamid dhaqanayo waxa laga rabaa waxa uu sheeganayo inay ka muuqdaan qof asluub leh discipline leh akhlaaq leh nadaafad badan dun iyo dulqaad leh intaas kaliya ma ahane inuu akhlaaq leeyahay kaliya laga marno qofka asluubta waxa laga rabaa inuu akhlaaqda dadka bari kara laga rabaa shaqooyinka ay ciidanka asluubta qabanayaan waxa kamid ah waajibaadka saaran waxa kamid ah ilaalinta xabsiyada dalka ku yaalo maxay ka ilaalinayaan ma qori kaliya ku ilaalinayaan waxay ilaalinayaan dadkii dambi falayaasha ah oo maxkamaduhu ay xukumeen oo loo geeyay dadkii lagu aamin lahay oo ilaalin lahay waay kaliya ma aha inay qofkii oo nool kaliya ilaaliyaan waxa laga rabaa qofkaasi inay gaarsiiyaan heer oo u qalmo inuu bulshadii dib ugu laabto oo qofkii bulshadii markii hore laga soo dhex saaray oo dambiga ku dhex sameeyay oo maxkamaduhu iyo cadaaladdu cadeeyeen in markii uu ku laabanayo ay noqdaa ay ka dhigaan ciidanka asluubta dadka dhaqanaya ay ka dhigaan qofkaasi qof u qalma inuu dib ugu laabto bulshadiisii ciidan kaliya ma ay xitaa ciidamada kale dadka ka tirsan shakhsiyaadka ka tirsan askarta ka tirsan marka ay qalad sameeyaan waxa loo keenaa ciidanka asluubta saas darteeda ciidanka asluubta oo muhiimad gaar u leeyahay bahda cadaaladana looga mid dhigay